بسم الله الرحمن الرحيم ودروس تاني تأملات قرآنية ما تحضر استاغنا في سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله سبحانه وتعالى وسوقت حيوان معجزة وصورة كامل ومعذري دقال كان الله سوق حيستي marka ciidan magaalada marka inay weeraraan rabay oo inay qabsadaan rabay kacbada soo dumiyeen abraha u soo kaxaystay xayawaankaas marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay awood weyn oo culus iyo muuqaal aad dakhmi oo aad u balaaran yuu siiyay marka muuqaalkaas markuu siiyay hadana waa xayawaan maxay ahayd xor ah oo meelaha qaabaadka meelaha banaanka inta badan ku socdo bani aadankana aad ula takayufo لقبسي بني آدم كأد وفيعن أد وفيعن يعني سدو أوي هي حيوان أكبر بدن ما أهان أما حيوان عادي فضل كبدن تبع ممكن لباري حيوان عادي فضل ينحرست كبدن تهاي إن كركيس الراعة أو سيد فرديه لوف ولا أضرب حياة الاستعمال وأقوليها إن بيره لوفش إن لحمال إن وحلا الاستعماله مركا سدو بني آدم أوس قرينها أقول نقول هي يوم قال كيسم إسلام oo marka ciidankan magaalada marka soo weeraray maroodi bay ciidan ka soo dhigteen maroodi waxay gaadiid ka soo dhigteen ka wada gaadiid ahaan bay u wateen marka uu aqbalay inuu korkiisa raaco ciidan ahaan loo kaxaa taas oo marka waxyaabo uu sababta u soo qaatay awoodda uu leeyahay iyo xoog ku jiro sidoo kale waa xayawaan ijtimaaci ah oo bani aadan ka shabaho xayawaan ijtimaaci markii hooyada uurka leedahay sanad kaamila aabihii iyo hooyadii iyo ilmihii isla socdaan caa'iladii familkii isdhalay way isla socdaan raxan isku socdaan asoo kaliya socdo ma arkaysid intii isku caa'ila ah ama isku familaba way isla socdaan raxan markuu soconaya raxan uu soconaya meelahaas banaanka ah iyo daaqaya marka meelahaas banaanka iyo geedaha daaqaya insaanka wuxuu ka shabahaa marka waa ijtimaaci xayawaan ijtimaaci oo taas sidaas ilaahay ugu soo qaatay quraanka ugu soo qaatay suurad kaamil marka asaga loogu magacdaray sidoo insaanka ugu dhow yahay iyo sidoo insaanka ula takayufayo ula qabsanayo iyo sidoo insaanka hayin ugu yahay oo maxay tahay ula caadifoonayo qofka barbaariyana oo dadka kale ka yaqaano hadii la dulmiyo uusan ku deynayno uu ku dili karo مثلا geedaha kale inta markuu cunayo kale hal mar geedka salku ka siibi karaa kaf uu ka siin karaa marka sidaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu magacdaray suuratul fiil wajah suurada kale quraanka oo xayawaanaadka loogu magacdaray sida suuratul baqara oo kale suuratul nahl shinida loogu magacdaray ankabut waa ka hadalay namli quraanshada marka suuradaha waxa jira Allah subhanahu wa ta'ala oo xayawaanaad khaas ah oo soo qaatay oo loogu magacdaray suuradaas loogu magacdaray qisadii suurada ay ku dhex jirto suurada kale ayada kala dul istaagayna waxa waaye zinada iyo faaxishada dhibaatada mujtamaca u leedahay ilaahayna quraan ku soo qaatay wala taqrabu zina inuu kana faaxishatan wa maqtan sabiila oo dhawaanina markii la dhahay muqaddimaatu zina qofku waxa keeni karo inuu zina ku dhaco inuu ka fogaado oo anadru qofka inuu indhihiisa ka laabo dadka ajaanibta quraanku uu sheegay qadul basar rag dumarku qofka inay indhahooda laabaan tan labaad ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay in ikhtilaadka isdhexgalka rag iyo dumarka ayadana inay zina keeni karto albaab zina labada qof wada ay qalwana rajul bi imraatin illa ma'aha thaalithum ay xadiiski oo kuma qan qofka hadii uu la gooni noqdo rag iyo dumar ay meel gooni ku wada kulmaan inuu shaydaanka saddex ku noqonayo markaas marka quraanka diiday in rag iyo dumar ay meel gaala khalwo ku wada noqdaan waxyaabaha kale muqaddimo zinad keeni karo waxaa waaye ariiqa hadalka jilicsan inay gabdhuhu ay ragga u adeegsadaan quraanka uu diiday falaa taqta'na bilqawli fayadmaca alladii fii qalbihi maradun waqulna qawlan macruufa hadalka ha jilcinina hadalka si wanaagsan ula hadlo markii gabadha nin ajnabiya ama nin aan deegaankeeda ah oo maxay guur ahaan geyn kara ay la tacaamulayso ama shaqo kula tacaamulayso ama ganacsi kula tacaamulayso inaysan hadalka soft ka dhigin aysan hadal jilicsan aysan kula hadlin oo ninkaas marka uu niyadiisa isbedesho oo damac iyo xaraan uu ku dhaco marka quraanku uu diiday gabdhaha taas lagu la hadlay markii cibaadu raxmaan ku ilaahay sheegay
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى أنزنا سمينين ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قف سمايا حرانتاس وحول مايا دنبي وحول مايا دنبي marka quraanku wuu diiday in qofka maxay ahaato uu dhawaado waxyaabahaas mid kale waxa yaa nisaa annabi man ya'ti minkuna haweenka nabiga la hadlayo ilaahay u goodinay mid diinay faaxisho sameeyay dambigeedu ka laabsan yahay mid kaleento caadiga ee qofka kale caadiga man ya'ti minkuna faaxisho daa'af laha al'adaab dhifayn alir law wallo si laabaya dambiga zinada hadii haweenka nabiga gabdhaha kala ku dayanayso moonalku marka islaamku mowqif waxyaabaha lagu halaagsamo dabada zina quraanku waxa muubiqaad qofka inuu fasahaadiyo mujtamac inuu fasahaadiyo oo marka maxay ahaato khiyaano iyo gogol dhaaf labada qof midka kale u qosmo arrajmu aka dhalanayso qofka in dhagax lagu dilo xayyan asagoo nool شرعة مسيء وأتكيسي إن جواب بانيجو ماذا عنقان المأور كان حتى ربما من الزنا أي حد كهاليجو أوجو لقى حاله الدنيا مركي عنق سون وجسي لبسنا يقول سيد نكسي حاجة كان أنت مالك بن ماعز يا رسول الله زنا كل نبي وكسي جست وكسي ما كده لواس خفاض يقول ماذا ما كده أحس حديث تقول ماذا إن حد كله أوجي قفك حد كله أوجي وزنا دي رجمي لو دلي oo dhagaxa nafta looga qaaday marka cuquubo adag waay qofka inuu ka fogaado zinada ka fogaado waa ficilna hada maanta aad bay u faaftay xadaara alqabiyo waxyaabaha maanta la xakameeyay la waxa waaye ummadda muslimkaana maanta meel walba ay joogaan in gabdhihii ay dayacmadeen maxay ahaato markuu guur iyo mustaqbal la'aan iyo shaqo la'aan iyo badaalo maxay ahayd qofkii uu xaaraanti inay nasoo gashay zinadii inay si mubaaxa ay noqotay biyo lacaba المدن مقالوين كولي بأياد وفافتي مركا قفك مسلم كان مركا إنو عفيف نغضو وقف دورسان نغضو وقف إلهي سبحانه وتعالى نفتي سكاءت كاذو إنو نغضو النبي يقول هاي قفكي أولها قرصدو قف كان أولنا هالصومو النبي عليه الصلاة والسلام هالصومو دليل بحالنا عفيفين نغضو قفك إنو دورسان هذا محرمات كسي كذا wixii u keeni karo wuquucda zina inuu zina ku dhaco u keeni karan oo ka fogaado qof iimaanka xataa waa laga siibayaa marka uu xaraanta sameeyo marka qofka cafiifka ah marka oo doorsanaado ilaahay marka dambe guur fiican u sahlaya wala yasta'rif alladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli ilaahay intuu wax ka siinay oo fadligiisa aad ka helayso noqo qof doorsoon هكا فسهادين ذلك قبلهودا مركا هكا فسهادين ويو قرآن حوسي عبري زينة أسبابه هذا إني قبلوه كارين فيهم دمركو إني كوغا هوريان هكا مركي توغا لغا هدلاي وحبوبتانك وحدعيتانك هكا لهرمرسي السارق والسارقة الله مركي لغا هدلاي زينة فاحشتنا قبلها لهرمرسي الزانية والزاني فاجردوا كل واحد قراعة قفكي سينا كلها بقول جدا كل فتاة سنقول سومرين هدو قول سومرين الرجم لقح إنه يدير إيش رعاة بمعنى لأنك هو موقف أدق بإسلام كإستاغي سينا كإستاغي وحونو إستاغي وحاوة دياع النصر قف بني آدم كفرع عيساه الله وسخى إيمانس أولاد الشوارع المها آبلا أنتو زينة آبلنا ضيع بقى قبله كل عام فحشة مركي أمضى كل حفظته وأنا وحياها قالوا يجعليهن إن أمضى إني فسهادية ربان أما أمضى إني قبستان ربان إن بمشهد الضمر كذا فسهادية مركا إن قبلها أنا وعي بذكر قادنا فكر كذكر قادنا مركي سوقان قارت لبرا حلاشي حرام تلبرا وقت يجور قارت سيسح لو جوري ونبي على إذا قف وراك سنة دو إيمان أذن كعيرنين oo siiso qofka masuulka ka ah waqti hore qofku inuu guursado mubakiran inuu guursado usan guurka ka daahin haddii guurkii uu ka burburo mid kale jaanis kale inay shareecada siisay dus asaga iska dhaafin waxaasoo dhan maxaa islaamku inuu ku dhiirigelinayo in dariiqa xalaasha ah uu qofka u bato dariiqa xalaasha qofku u bato oo isticmaalo dariiqa xaaraantana uu ka fogaado wallahu aclam